midowda Yurub waxay sheegeen in iibinta ay dalalka reer Yurub qaarkood baasaboorradooda ka iibinayaan hantiilayaal shisheeye ay tahay arrin khatar ku noqon karta wadamada reer Yurub oo dhan. midowda Yurub waxa ay leeyihiin dalalka qaarkood waxa ay baasaboorradooda ugu gacan gelinayaan hantiilayaasha shisheeye si ay dalka maalgashi ugu sameeyaan. laakiin taasi waxay albaabka u furi kartaa inay hantiilayaal dambiilayaal ahina baasaboorradooda iibsadaan dabeetana ay si xorriyada qaaradda Yurub isaga tallaabaan. sida ay baahisay jariirada Daily Mail ee dalka Britain, hay'adda iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta reer Yurub waxa ay liiska madow ku dartay wadamo isticmaala siyaasadda loo yaqaano adeegga baasaboorka dahabiga. siyaasadda oo hantiilayaasha shisheeye u oggolaanaysa inay helaan baasaboorrada wadamada kadibna marka ay hantidooda geliyaan oo ay maalgashi sameeyaan. midowda Yurub waxay sheegeen in baasaboorrada la siinayo hantiilayaasha shisheeye ay caqabad ku noqon karaan dadaalada lagaga hortegayo cashuuraha lala baxsanayo, iyadoo siyaasadda noocaasa ee dhalashada waddan lagu siinayo ama lagaga iibinayo hantiilayaasha ka baxsada cashuuraha ay siinayso goobo ammaan ah oo u noqda gabbaad ay kaga dhuntaan hay'adaha ammaanka ee raadkooda ku jooga. wadamada Qobrus, Malta iyo boqortooyada Monaco ayaa safka hore kaga jira dalalka isticmaala siyaasadda iibinta baasaboorrada sida lagu xusay warbixinta midowda Yurub. haweeneyda midowda Yurub u qaabilsan cadaaladda Vero Jirova ayaa goor sii horeysay waxa ay ka digtay iibinta baasaboorrada noocaasa oo sida ay sheegtay keeni kara in qofka dambiilaha ah ee uu gacan galaa uu si madax bannaan isaga safri karo oo isaga gudbi karo xuduudaha wadamada ku jira midowda Yurub, taasina ay khatar ku tahay dhammaan dalalka xubnaha ka ah midowgaasi. jasiiradda Malta ayaa dhalashada wadankeeda waxa ay ku bixisaa 650,000 oo giniga Istaraaliiniga ah iyo inuu qofku iibsado saamiye maalgashi oo gaaraya 350,000 oo isla lacagtaasa, iyadoo sida uu xusay sanduuqa lacagta adduunku ay Malta 3 sannadood ee u dambeeyay dhalashadeeda ka iibisay hantiilayaal gaaraya 800 oo qof, kuwaas oo badankoodu asal ahaan u dhasheen dalalka Ruushka iyo Shiinaha, xilli ay jasiiradda Qobrus iyana dhalashadeeda ku iibiso 2 milyan oo giniga Ingiriiska, waana qiimo u dhigma ka ay dowladda Ingiriisku fiisaha dalku galka ah ku siiso maalgashadayaasha nambarka koowaad ee looga baahan yahay inay 2 milyan oo dollar ku maalgashadaan dalka Ingiriiska.